Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somaliland Professor Umar Ali Abdullahi ayaa kulan isxogwaraysi ah la qaatay guddiga xanuunka coronavirus ee gobolka Saaxil. Kulankaasi markii uu soo dhamaaday ayaa wasiirka iyo guddigan heer gobol ay Kormeer iyo indhendheyn ku soo mareen qaybo kamid ah Cusbitaalka Magaalada Berbera. Qaybahaas oo ay kamid ahaayeen qaybaha loogu talagalay dadka uu soo rito xanuunka coronavirus. ugu horeyna waxa kulankaasi ka hadlay Isduwaha Wasaaradda Caafimaadka gobolka Saaxil Dr. Bashiir Diiriye iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Cidin iyo sidoo kale barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan hadaan warbixin kooban ka bixiyo runtii markii hore xaalad adag baa la galay xaalad adag baynu ku bilownay farxad waxa maanta oo inaan sheegi karayno in gobolku wax badan qabsaday isagoo isku duuban maamulkiisa isku duuban oo caafimaad leh oo maamul sare leh oo maamul dhexe leh inuu tashaday isagoo ku shaqeynaya siyaasadii wasaaradda caafimaadka iyo tii guddida heer qaran waxaan howlgelinay dhammaan wixii ugu muhiimsanaa ee in xanuunkan lagaga hortago ay ahayd oo ay ugu horeysay in la helo meel dadka lagu daryeelo shaqaalihii in tababar la siiyo in la helo qalab caafimaad oo lagaga gaashaanto xanuunka waxaan rajaynaynaa kulley warbixinta detailkeeda waxa ku sugnayay Isduwaha waxaan rajaynaynaa aad iyo aadna waa u soo eegaynaa wasaaradda iyo qarankaba anaga culayska ugu badan saacadda wasiir waxa weeyaan Berbera waxa ku taala dekadii qaranka darawalka ka yimaada fiiq ama ka yimaada Addis Ababa ama ka yimaada maxay ahayd Jigjiga iyo gaadiidka ka yimaada Puntland ama ka yimaada maxay tahay gobolada dhexe ee Soomaaliya dhamaantood halkan bay u adeegaan waxa laga yaabaa darawaliintaasi inay 3 cisho 4 cisho magaalada Berbera joogaan waana culays anaga noo gaaro anagu si gaar ah ognay runtii la maxay tahay ka hortageeduna maxay tahay isdhexgalka noocaas ah wad garan karaysa culayska ay leedahay waxa laga yaabaa in dad badan dareensanayn toddobaadkii kun gaari in ka badan ba ama yimaada ama ka baxo oo meel kale inooga yimaada taasina culifaadka ah ee adduunka oo saameeyay ee ugu horeeyo guddida heer qaran ee kortaka xanuunkan COVID-19ka waxaan aad ugu mahad celinaynaa Isduwaha gobolka iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka ka hawlgala waxaan ku leenahay dhig hawdhigin ummadan waa loo shaqeynayaa waana loo soo shaqeeyay waana loo sii shaqeyn doonaa mar walba koobka inta maran bay bulshadu aragtaa inta buuxda ma aragto waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa wax kasta oo wasaaradda naga soo gaadha taakula intay doontaba hal leekaato waxaan ognahay qaranku ama qarankeenu inaanu gabayn cidda uu mas'uulka ka yahay gobolada halkay doonaha kaga yaalaan Somaliland waxaan ku adkeynayaa ku celcelinayaa qof kasta oo mas'uula oo kamida mas'uuliyiinta dawladda waa xil iyo mas'uuliyad saaran inuu bulshadiisa hoos u eego oo ilaaliyo ka gobol ahaan nacaawiyay mar iyo laba iyo saddex wax noo keenay oo annaga shay hadii lagu keenay wax weyn buu noo noqonaya haba yaraatay iyaga haduu la fudud yahay annaga wax culus buu noo noqdaa liiskii ka guddiyahanada cilaamiseen maalintii dhaweydna liisku idinma soo gaarin laakiin waxaan jecelahay in hadda idin sii gudbino waayo in la xusaan jecelahay oo guddiga heer qaranna xusaan dadkan kaalmeeyay HPI oo kale ama GIZ ama maxaan ku dhahday ay kamid ahayn tusaale ahaan aan soo qaadanayo oo intaas soo jeer wax bixiyay waxaan jecelahay in iminka liiskan ku dhiibina oo raaco xuska oo gala dadka u soo gurmaday dalkii inay kamid yihiin iyadana taana saasan yaan leenahay waxaan baan jecelahay insha Allah idinkuna gabagabadiina wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Professor Umar Ali Abdullahi Bade ayaa isaguna halkaasi ka hadlay soo wajaha bulshada aad baan ugu mahad celinaynaa meel kasta oo ku sheegnaa uu og yahay Bashiir tusaalayaal badan oo marka maamulka caafimaadka laga hadlayo iyo waxyaabaha saameynta ku leh oo ugu horeysa guddida gobolku arintaasi arin ma aanu qarino wali waxaan u isticmaalaa marka tababarada la sameeyo ama riboodada la qorayo in la isticmaalo tusaale noocaas uu saameyn ku yeelan karo adeega caafimaadka waxa kale oo mahadnaqayaa si gaar ah gudoomiyaha degmada oo mashruuca JBLG aanu ka wada shaqeynay oo ahaa maamul daadejinta caafimaadka orun ahaantii heshiiskaanu galay oo ilaa 5 qodob uu ahayd inay dawladaha hoose ay la wareegaan arrimaha la xiriira muxuu ahaa
MCH-yada iyo xarumaha caafimaadka hooyada dhallaanka ruuxantii intay dhaafeen oo MCH dhiseen oo qalabeeyeen oo shaqaalaha u qabteen oo dawada geeyeen gacantana ku hayaan taan ugu mahadnaqaynaa taas marka waxay muujinaysaa mas'uuliyadda iyo isxilqaanka iyo qofku inuu garto dadkiisa wuxuu u qaban karo inaanu fasaxna u raadsan muxuu ahaa cidna aanu kaga raadin abaal iyo magac laakiin dir lahayna uu shaqeeyo waxa weeye xoogiisa iyo xoolihiisa iyo xikmadiisaba markaa uu qaranka ugu adeego taana ugu mahad celinaynaa sidoo kale intii uu socday kormeerkaasi ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka warbixino ka siinayay saraakiisha caafimaadka ee gobolka saaxiil daweynayna halkan aan joogno waa isolation number 1 ama halkii ugu horeysay karantiimada ka bilaabantay dumarka 4 sariirood baa yaala iyo qalabkoodii oo dhan wixii adeeg u baahnaan oxygen shaqaalihii wixii loo tababaray si loogu badbaadiyo dadka muxuu ahaayay inta bogsanayaan albaab dambe ayay leeyihiin halkan waa halkii nurse-ka loogu talagalay ee ku bedelanayeen laakiin meel kasto oo karantiimo waxay leedahay geed dambe iyo albaab dambe daaradahoodii way leeyihiin halkaas lagu ilaaliyaa lagu ogyahay waxaan jecelahay dadku waxay moodayaan in la fogeynayo inuu karantiimo waa dadkeeni waan daweynaynaa waa caadi qofka bini'aadamka markuu noo yimaado wasiir ama kanaaca haysa ama koodidii haya ama corona haya inagu waxaynu nahay goob caafimaad كمتاسمع علي 5 TV مقالة بربرة.